السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج aanugu magac darnay wax ka baro madaxdii Afrika. Waxaana barnaamijkeena ku soo qaadanayna taariikhdiisa waa madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Xasan Umar Xasan al-Bashir, madaxweynihii dalka Suudaan ee la afgembiyay. madaxweynihii la afgembiyay ee dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa waxa uu ku dhashay tuulo yar oo la yiraahdo Hoshwado oo dalka Suudaan ku taala markii ay ahayd taariikhdu 1944 todobadii January. waxa uu soo noqday taliyihii ciidankii militariga Suudaan. waxa uu markii dambe afgembi ku qabsaday dalka Suudaan sanadii 1998. Umar Xasan al-Bashir waxa uu ka soo baxay kulliyadda militariga ee jaamacadda ku taal caasimadda dalka Masar ee Qaahira sanadii 1973 isagoo ka mid ahaa ciidankii dagaalka la galay Israa'iil. taliyihii ciidanka militariga Suudaan waxa uu noqday sanadii 1980. Umar Xasan madaxweynihii hore ee dalka Suudaan ayaa waxa uu ku soo jeedaa qoys Muslim ah, waxaana uu ka mid ahaa geesiyadii soo xukumay laba qowmiyadood oo kala diin ah, maadaama Suudaan waqooyi iyo tan koonfurta intaan kala jarin Muslim iyo Kiristaan buu madaxweyne u ahaa. al-Bashir waxa uu dalka ka aas-aasay xisbi la yiraahdo National Revolution Congress sanadii 1998 iyadoo uu ka ahaa gudoomiyaha xisbiga. General Umar Xasan al-Bashir sanadkii 2009 ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu laayay siyaasiyiin iyo shacab ka soo horjeeday xukunkaas oo falalka ka dhacay Suudaan koonfurta iyo Khartoum intii aanay kala gayn labada Suudaan. dhibaatada waxay ka dhacday Darfur iyo deegaano kale, waxaanay u baahnaayeen dad lagu eedeeyay inay laayeen qaylada haysata maadaama Kiristaanku ka soo jeedo Suudaanta koonfureed. General Umar Xasan al-Bashir sanadii 2009 maxkamadda cadaaladda adduunka ICC ayaa u jeeday warqad lagu soo xirayo Umar Xasan al-Bashir kadib markii lagu eedeeyay in dambiyo dagaal uu galay. shacabka dalka waxa uu intaas ku dambeeyay al-Bashir waxaana ay aad u riyaaqeen safaradii dibadda uu ku aadi jiray markii laga reebo qaar ka mid ah wadamada Afrika iyo kuwa Carabta. Umar al-Bashir aad u doonayay wadamada reer galbeedka. General al-Bashir ayaa waxa uu sahlay in la xirin go'aanka maxkamadda ICC inay fuliyaan madaxda wadamada Afrika iyagoo diiday go'aanka maxkamadda ICC ee maanta taariikhda Abriil 2019 bishii 11 ciidanka militariga Suudaan ayaa xiray xoogna kaga qaaday xukunkii madaxweynimo xukuumadii Suudaan kadib mudaharaadyo hareeyay dalka Suudaan. madaxweynihii hore ee dalka Suudaan oo maanta xilka xoog looga farmaajiyay waa 75 jir. waxaa khibrad militari inta uu xukumayay dalka. waxa uu go'ay Suudaanta koonfureed sanadkii 2011 markii laga cadeeyay in Suudaanta koonfureed ay ka go'do Suudaanta inteeda kale. Suudaan waa dal Carbeed kuna yaala waqooyiga bariga Afrika, waana wadamada Carabta kuwooda ugu tunka roon. Suudaan waxaa dega dad Islaam ah inkastoo dhowr Masiixiyiin ku jiro. caasimadda dalka Suudaan waa Khartoum. Suudaan waxaa mara webiga ugu dheer caalamka oo ah webiga Niilka, iyadoo magaalada Khartoum ay iskaga soo daraan labada firaaq ee webiga Niilka waa buluug iyo cadaanka. Suudaan waxay colaadi kala dhaxaysaa wadamadeeda dariska sida Itoobiya, Eritrea iyo Masar, inkastoo waqti xaadirkan lagu jiro Masar xulufo wada yihiin. Suudaan ayaa waxaa ka qabsaday dhul dalka Itoobiya haatan inkastoo gacanta ku hayso bilihii u dambeeyay.